hooyo Faadumo Xasan ayaa hadda ku howlan qasida daawooyin loogu talagalay fuuq celinta shubanka iyadoo oo gacanta ku hayso caag ay ku jiraan 2 litir oo biyo ah iyo milinka shifo. waxaan qasaya oo arees waxaan ku qasayaa biyo caafiya markii cunuga uu matago ama uu shimo ina siiyo ayaa ugu talagalay cunugan waa goorma la keenay markii meesha saaki ayaa la keenay. arrintan ayaa muujinaysa in Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya uu ka dilaacay cudurka shubanka. halkan waa isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir waxaan gaaray xilli barqa ah markiiba waxaan ku arkay howlwadeenno caafimaad oo ku howlanaa u gargaaridda bukaanno uu soo ritay cudurka shubanka iyo waalidiin la murugeysnaa xaaladda caafimaad ee dhalaankooda. qaybtan aad arkaysan waxay ka mid tahay isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir wana qaybta dumarka ee la keeno marka uu shubanka ku dhaco iyo xanuuno kale hayo sida qaybtan dadka saacadii ugu dambeeyay la keenay iyo jabiga xaaladda caafimaad dadka halkan ku jira waxay noo sharaxaya Jamaal oo ka mid ah howlwadeenada halkan iyo isbedelka saacadii ugu dambeeyay. meeshan waa qaybta shubanka dumarka oo female saacadii ugu dambeeyay waxaa la keenay 10 qof ilaa hadda waag intuu bari saacada hadda aan joognay 7 saac ay tahay intaas la tacaalida shubanka dehydration si loogu celin lahaa ama wax loogu sameeyo treatment-keeda aan ku jirnaa walow isbitaalka uusan daawo haysan. caruurta ay da'doodu ka yartaa 5 sano ayaa ugu badnaa tirada dadka ku jira isbitaalka Banaadir ee la ildarnaa cudurka shubanka. haddaba sidee caruurtu ugu nugul yihiin inuu haleelo cudurkan waatan Dr. Saluul Maxamuud Maxamed oo ah madaxa qaybta caruurta ee isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir oo arintaas sharaxaysa. sababta keenaysan caruurtaas oo difaacooda iska hooseeyo nafaqadooda oo yar darteed iyo ilmiyo aan cudurrada qaarkood ka talaalneen oo aan caafimaadkoodu taam ahayn ayuu ku dhacayaa kadibna wuxuu keenayaa inuu shubanka saas ay ugu nuglaadaan way ugu nugul yihiin dadka kale. mid kale dadka kale markuu shuban ku dhaco qof weyn oo kale doo shuban ku dhaco difaaci jirkiisa ayaa difaaci kara maxay biyo iyo iska cabi kara laakiin ilmaha jirkooda boqolkiiba maxay 70 in ka badan biyo ah marka hadii ay shuban ku dhaco way fuuq baxayaan. iyaga oo ku sugan isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir waalidiin haween u badan oo dhalinyaro ahaa ayaan weydiiyay xaaladda caafimaad ee dhalaankooda. saakin hal saac waxaa ku aragtay halkan keenaysa oo xanuunsan seelo hay shubanahay hadarno iska fiican yahay daawooyin oo qaatay waxaa ka keen Madiina ka ugoday way xanuunsiin waa shubma wan matawaay weenka raashin maqaana hurdin maasman iyo qunfaa wiil waa goorma isbitaal keentay markii saak shubankaasi matagaas raashin la'aantaas. cudurka shubanka ayaa ka mid ah cudurrada dilaaga ah marka deegaano ka mid ah Soomaaliya uu ka dilaaco cudurkan sidee bulshada isaga ilaalin kartaa waatan mar kale Dr. Saluul Maxamuud Maxamed. maadaama cudurkan shuban biyoodka oo nadaafadda ku badan yahay haddii cudurka ay arkaan inay waqti fiican tagaan xarumaha caafimaadka inay habeenadii u daran oo aras inay markasta guriga taalo cunuga haddii oo shuban lagu arko ama qof weynba in oo aras waa meelan la qaso lagu qaso 1 litir oo biyo oo nadiif ah lana siiyo qofka shumaay marka inay markasta guriga taalo si habeenadii marmar waxa dhacday isbitaalka dadka la keeni kara ama xarumaha caafimaadka inay xiran yihiin qaarkood taasna ay keento qofka inuu caaw dhan soo fuuq baxay oo subax marmar soo dhintay ama tacbaan isbitaalka la keenay marka inay taasna ay ka taxadaraan ayaan kula dardaarmayaa. Aways Maxamuud Jilco Royal TV Muqdisho.